calaamado lagu garto ninka ku khiyaanayo adiga. Mararka qaar xaqiiqadu hortaada ayay taala, laakiin waxaad doorbidaa inaadan eegin. Indho u yeelo gabaray calaamadahan oo ogow haddii uu ninku khiyaanayo adiga. Mid ka mid ah xanuunada ugu daran haweeney ay dareemi karto ayaa ah qalbi jabka. Mararka qaar waxay qaadataa muddo aad u dheer inaad ogaato in ninku khiyaanayo adiga. Markaas kadibna su'aashan ayaad isweydiin doontaa, maxaan mar hore u ogaan waayay? Sababtaad u ogaan weysana waxay tahay adiga kama taxadirin. Waxaan ku sheegi doonaa 5 calaamadood sheega inuu ninku khiyaanayo adiga. Number 1, kuma dulqaadan karo ninkan adiga. Marka aad weydiiso qofka uu xalay la joogay ama qofka uu call kula jiray, wuxuu kugu falceliyaa si xun. Taasi waa calaamad walwal leh. Number 2, qorshihiisa ma dhamaado. Ninka markasta wuxuu ku dhahaa meel ayaan u socdaa, mana ku sheegay meesha uu socdo. Markastana waa mashquul ninkan. Mararka qaar rag space ayay u baahan yihiin, laakiin haddii ay caado u noqoto inuu ninku in meelan la ogeyn ka aado, ninkaasi waxba u qarsan. Number 3, wuu iska kaa fogeeyaa adiga oo xur ayuu kaa dhigaa. Markasta wuxuu jecel yahay inaad dad kale waqti la qaadato, isagana aad faraha ka qaado. Tani wax ku fiican ma ahan, waayo haddii lamaankaaga markasta kugu dhiirigeliyo inaad qof kale waqti la qaadato, wuu ka xiiso dhacay ama wax kale oo qarsan ninkan. Number 4, uu qarsadaa mobilkiisa. Ninka markii la soo wacaba ama fariin loo soo diro wuxuu u cararaa xagga mobilkiisa durbadiiba. Adigana kuma ogolaado xitaa inaad qabato mobilkiisa. Mararka qaar wax dhib ah ma leh taasi, laakiin haddii uu meel kasta password kaaga xirto, ninkaasi waxay u badan tahay inuu ku khiyaanayo adiga. Number 5, sheekadaada wuu ku cajisaa. Mararka qaar way dhacdaa in la waayo wax la isku sheego, laakiin haddii uusan ku sheekin karin ninkan ama wada sheekaysigiina uu markasta dilo, ninkaasi waxay u badan tahay inuu ku khiyaanayo adiga. I hope inay wax badan ka faa'iidi doonaan muuqaalkan gabdhaha. If so, like si muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena. Insha Allah saaxiibayaal, antil muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafay. Salaam.